daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa gacanka Shilba Sheti oo beenisay in ay xaamilo ay tahay kadib markii Anurag Basu uu qoyskeeda ku wargeliyay in ay uur leedahay. Anurag Basu oo kamid ah shakhsiyaadka ugu caansan dalka Hindiya ee ku caanbaxay dhanka prank ama practical joke ayaa waxa uu haatan ka booleystay qoyska atirishada caanka ah ee Bollywoodka Shilba Sheti oo daadaysa barnaamijka Super Dancer 2 ayaa waxay barnaamijkeeda ku casuntay Anurag Basu laakiin wuxuu halkaasi uga booleystay qoyskeeda. ilo ku dhow Shilba Sheti ayaa u sheegay warbaahinta intii lagu gudi jiray waqtiga nasiinada ayuu Anurag Basu fursad ku helay taleefanka Shilba iyaduna waa ay maqneed waqtigaasi kadibna wuxuu fariin u diray walaasheed Shamita Sheti isagoo u qoray uur ay leedahay. wixii intaasi ka dambeeyay Shilba ayaa wicitaan lagu weerariyay iyadoo loo soo diray fariin qoraaleedyo badan oo loogu hambaleynayo. dhowr saacadood ayayna ku qaadatay Shamita in ay dadka ku qanciso in aysan xaamilo ahayn ama uur aysan lahayn walaasheed. kadibna Shilba ayaa garatay la ogaaday in Shilba uu Anurag Basu ka booleysay ama uu ku ciyaarayay si kaftan. daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabanaynaa barnaamijkeena.